iyadoo muddooyinkii u dambeysay abaar ba'an oo sababtay biyo la'aan baahsan ay ka jirtay deegaanada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadaga iyo deegaanadeeda ayaa baaqyo kala duwan oo qayladhaan ah oo ay direen maamulka degmada Garadaga waxa ka soo jawaabay sidoo kalena deeq biyaha soo gaarsiiyay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah hormuudka bahda dhaqanka Soomaaliland waxaana deeqdaasi oo maanta la bilaabay horaanteedii la gaarsiiyay dadka barakacayaasha ah ee xoolahoodii abaartu ka dhamaysay ee ku sugan kaamamka kala duwan ee Fadhigaaba iyo Wargumbi deeqdan biyaha ah oo socon doonta ugu yaraan 4 maalmood sidoo kalena la gaarsiin doono deegaanada abaarta baan ka jirto ee galbeedka gobolka Sanaag iyo degmada Garadagba ayaa waxa boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow u soo wakiishay ururka Gayfo oo ah urur samafal oo ka jira degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag oo ay ka socdaan mas'uuliyiin sarsare oo ururkaasi kamid ah kalana ah Siciid Aadan Siciid iyo Cabdisaal Jaamac Xasan ayaa dhankooda ka warbixiyay sida ay biyahani u gaarsiiyeen dadkii kala duwanaa ee danyarta ahaa ee biyahani loogu talagalay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan joognaa saaka waa Fadhigaab baan joognaa. waxaan marka hore Ilaahay baa mahad leh. waxaan u mahad celinaynaa mar labaadka waxaan wakiil ka nahay horta anigoo ku hadlay ururka Gayfo waxa weeye urur mutadawiciin oo ka jira degmada Garadag oo la yiraahdo Garadag Youth Voluntary Organization ururkaasi xilliyada adag inta badan shaqeeya bulshada jilicsan waxaanu isku daynay markaa inaan u kurgalno xaaladda dadka iyo deegaamada degmada Garadag waxaan la xiriirnay boqor Cismaan Buurmadow oo noo soo wakiishay biyahani waxay gaari doonaan Fadhigaab Wargumbi Karasharka Shiisha iyo Tuurka sidoo ka warhayno waxa weeyaan laba biyo baa jira biyo waxa weeye biyo xoolaha la siiyo biyana waxa weeye biyaha dad macaan dadku cabbo biyahan ilad baa laga soo qaaday shantii lowdha ugu horeeyay baan xalad dirnay saddex booyadoo kamid ah darin la jooga labana way dambeeyaan waxay lagu shubi doonaa Wargumbiyo baa leh Fadhigaab kullay waxaan joognaa kaamkii ugu weynaa gobolka Sanaag sidoo ka warhayno ugu balaadhnaa xukuumadda dawladda hoose degmada Garadag qurba joogta qolqol joogta mid kasta waxaan baaq u diraynaa dadkaasi inay raad leel daran yihiin in biyo la soo gaaro sidaynu ognahay nolosheenu 75% waa biyo joognaa fuuladii Wargumbi booyadii shanaad ee saaka hawl maalmeedkayga noo qorshaysnayd Fadhigaab waan ka nimi waxaan joognaa Wargumbi oo lowdkii shanaad lagu shubayo Ilaahay baynu baryaynaa marka hore Ilaahay baynu mahad celinaynaa mar labaadka waxaynu mahad celinaynaa boqor Cismaan aw Maxamuud oo biyaha noo soo wakiishay hadaan nahay ururka Gayfo degmada tuulada Fadhigaab iyo Wargumbi meesha la yiraahdo Karasharka Garadag Shiisha iyo Tuurka intaas aan noo qorshaysay inaan gaarsiino biyaha macaan ee ilad laga soo qaaday sidii baan shaqadii u wadnaa waxaan la joognaa hadda gudidii alxamdulillah Ilaahay baa mahad leh maanta waxaan joognaa deegaamada Fadhigaab iyo Wargumbi waxa uu shaqo maanta ka wadno shaqadaas oo ah shaqadii ugu muhiimsanayd ee maanta in la qabto mudnayd shaqadaas oo ah inaanu biyo dhaamis maanta aanu ku jirno biyo uu soo bixiyay shakhsi muxsina Ilaahay khayr ha siiyo oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ayaa soo bixiyay markaa deeq biyo oo ugu talagalay dadka jilicsan ee aan tahli karayn inay biyo helaan biyaha loo qaybiyo arrinkaas oo noo soo wakiishay ka ahaan aan ugu talagalay markaa inuu dadkiisa baahan biyaha u qaybiyo arrinkani wuxuu kamid yahay waad ogeydeen shalayto degmada Garadag maamulkeedii waxay ku dhawaaqeen in xaalad degdeg ah oo biyo dhaamisa deegaanka uu u baahan yahay oo laga fuliyo tani waxay noqonaysaa jawaabtii ugu horeysay ee isla daqiiqadiiba markaa uu soo bixiyo
boqor cismaan oo maxamuud buurmadow isagoo markaa dadkiisa jilicsan mar walba ah shakhsi u beer nugul maantana shantii booydood ugu horreeyey baanu gelinka hore maanta bixinay tiro fara badan oo biyaayna way jiraan dhankooda dadweynihii kala duwanaa ee deeqda biyahan in la gaadhsiiyey ayaa boqor cismaan aw maxamuud buurmadow uga mahadnaqay isgarabtaagga iyo taakulaynta uu ugu jiro gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen ee ay ku adag tahay helidda biyaha macaani bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxa weeyaan udeelaha baa mahadle halkan suuqeen keenay marka xigta waxaan u mahad celinaynaa ninka boqorka Afrika boqor buurmadow loo keenay dadka qaxoontiga ah ee maanta hadda lagu roon yahay baahidu lixaad kala haysato u keenay biyaha halkan waxaan ku keenay 3 booyadood oo fadhigaaba kiliitay dadka jecsanaa waxaan leenahay aad iyo aad waxaan baaq ugu direynaa dawladda haddii lagu roon yahay xildhibaanada hay'adaha haddii lagu roon degmada garada waliba inay xog ka hayso dawladka inta ay ka mas'uulka tahay codka ka heshay bishii koowaad waxaa halka ka noogu yimi 3 booyadood oo ugu horeeya kaamka fadhigaab oo marka uu soo diray cismaan aw maxamed waxaanu leenahay isaga horta miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro haddii ay tahay xildhibaanada iyo haddii ay tahay degmada garadag iyo haddii ay gobolka tahay wax labeeya weli maanu arag waa maalintii koowaad wuxuu yidhi ragga tirisoo tiltilmaantaye kumaad naga tebiyo wax tari jiray yaa marka weli ma hayno ninku labaa cismaan aw maxamuud marka isagana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro gumbi waa biyahaasina waxaanu nahay anigu waxaan ahay guddoomiyihii wargumbi guddidii kalena waa joogtaa iyana waa hadli doontaa والسلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والله إلهي بان محد له إلهي بان مركور الله محد نقيا محد دمانت إلهي بس كلام مركح حتى وحنا محد نقيناه وأن أبال وين جوهيناه بقر عثمان بورمدو وبيها دقدا نسوق جارسيي وحنا كلا يضنا أن بقادرنا برشة يرجع نسوق جارسيي كشغينا يعرفنتاه أيانو يجنا عادي بقادرنا بيها سوى بيه معان وبيا معان وي وانا la soo gaarsiiyay anagu waxaanay sidaa odagii oo hayrku sheegay tuulada laga yado wargumbi ayaanu nahay biyahaas way noo yimaadeen si wanaagsan baan loogu keenay waad mahadsan tahay si wacan baad noos maanta noo soo waraabisay waana kugu faraxnay waana kugu raaxaysanay garabkaaga Allah galo garabkaaga Allah galo wixii cadow Allah ka indhasaab markii ku ducayn Maxamed Kashina ku soo ducaynay ee aan waxyaalo maqalay ku soo ducaynay haddana ku soo ducaynayna garabkaaga Allah galo cadow ina Allah ka indhasaab khayr Allah ku siiyo maanta dadka ka farxisay haday biyaha heleen foosta biyaha heleen anaga oo noo ahaata وناس كردي أو ناس كع أو غير بنقص هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلكم وحنا كل سلام إن أمرك هره بقرك عثمان محمود بورمدو السجا هرت حسنات كيس في آخره السجا إسكاله تحكتا تدخل حير هذا نبت تعبكي توجي كامل يو نما وحطبعنا ضدك وحترنا هذا وين نيس كل ريال الله ما باهنا يا وحتر يا سوى على صباح الله يا هذا آخره يفتين كبا وحملنا يا لبيي محمد قنبر التلفزيون كبلشو كردك